gabadha waa la garaacay abooy cafi qalad baan galay abooy cafi qalad baan galay abooy cafi hooyay iyo cafi abooy cafi way ku celcelisay anu gabar ma dhalin laase wiilal waa waxaan dhalay ha ahaatee ilaahay waxaan ka baryay oo dhahay ilaahay ba isiyo ayadana waxaan ku dhahay hooyo ilaahaygi Allah subhanahu wa ta'ala weeye alxamdulillah ani gabar isiinin ba adigana hooyada ka jeclaado qaatay anana ilaahay hibi ii ka siiyay hadii aan ogahay in aabahaas oo ilmahaas ay ka suurtoodo inuu macnaa kow ka siinayo anigu ilmo yar yar oogama aan tageen Allah u naxariistay Khadiijo Axmed Cabil oo 18 sano jir ahayd ayaa galinkii dambe ee shalay la sheegay in ay ku dhimatay gurigan laakiin sababtii ay u dhimatay ayaa ahayd sabab yaab leh oo dadka qaarkii ay sheegeen in aabaheed uu gabadhaasi nafta dhaafiyay waxaan soo gaarnay oo telefishinka RTN soo gaaray gurigan iga dambeeya ama gaar ahaan qolkan oo ay ku nafbaxday Allah u naxariistay Khadiijo oo la sheegay aabaheed inuu dilay eedada oo aan kula kulannay ama gabadhii eedada ay la joogtay gabadha waan la kulannay waxay noo sheegtay in gabadhu ay ahayd gabadh u fiican isla markaana maalmihii ugu dambeeyay ay qoreeday fariina ahaa aabay cafi aabo qalad baan galay waxyaabo muujinaya gabadha in ay dhibaato tabanayso oo kale sidoo kale maamada aan la kulannay waxay noo sheegtay in gabadha mararka qaar aabaha uu canaanan jiray isla markaana shaamug lagu canaanan jiray inkastoo gabadha jirkeeda lagu arkay dhaawacyo daran oo dadka qaarkii ay sheegeen xitaa in kal iyo waxyaabo kale loo adeegsaday dilkeeda ilaa hadda lama xaqiijin laamaha amniga ayaa gacanta ku haya aabaha oo shakigu ugu badan uu soo galay laakiin inta badan dadka dariska iyo cid allaala cidii taqiinay waxa ay sheegeen in uu ahaa aabahu qof neerfa qaba oo xanaaq badan isla markaana mararka qaar saayid u xanaaqi jiray canaan badanna kala kulmi jiray ama canaanan jiray gabadhiisa gabadhii dhimatay Allah u naxariistay Allah raxmaan raxiimeen waxay dhimatay gabadhii dhimatay waxaan wahay eedo oo aabaheed bay qabay habaryarna waan waa xagga waalidka habaryar baan oga ahaa hooyadeed baan haa family koranahay marka habaryarna waan ahaa eedina waan ahaa gabadha waka see wax u dhaceen gabadha waxay u dhaceen anigu waa iyadoo caafimaad qabta oo cilaankii ii daxata ilaa hadda lugaheeda uu ka muuqdaa oo madoobaysada gacanteeda ku saaratay cilaanka buufiska iyada saari jirtay marka iyadoo caafimaad qabta ayaa waxa la ii soo sheegay qamiistii hooyada in isbitaal loola cararay isbitaalkii baan marka qamiistii maba aan ka gaarin hooyo xataa dhimashadeedii oo intaan ilmaha quraac u diyaarinay oo ayada isku aadinayo dhahay hooyo ilmihi ayada uga tagay adigu gabar caafimaad qabta oo ilmaha uga tagay ayay ahayd gabadhu waxay ahayd gabar iska fudud marka hore oo waa bixi jirtay inta badan waa la soo qaban jiray way bixi jirtay hal meel aan ku baranay madaxa looga jiray maya dhalinyarada sanadkan adu waa taqaan dhalinyarada sanadkan gabadha hadda Allah u naxariisto way dhimatay waa ilmo rajana way ahayd ma garatay markay baxdo maxay qaban jirtay maya anagu haday baxdo asaga ka daba bixi jiray waa la soo qaban jiray wuxuu yiri gabadhi way dhimatay yaa dhintay Khadiija dhimatay oo maxaa ku dhacay say u dhimatay gabadha ayadoo caafimaad qabtaan ka soo tagay waxa macquul ma ahan dhahay say u dhimatay gabadha ama naqas haya gabadh dhakhtar ma geysay intii markaan wuxuu yiri ay sukaray weydii dariskan ugu soo wacay ay sukaraydiya marka ila hadashay macooy Allah naxariisti janno hooyana Allah siiyo gabadhiina Allah ka siiyo naxariis bay tiri markaas waxaan Allah hooyo ama gabadha suuxsan tahay waa qaadan waay aniga gabadha waxa ku yaalay dhaawac badan oo caafimaad qabo oo ilmaha uga tagtay macni kadiisa igu noqotay runtii waan jiray aniga dhan waan qaboobay intaan ka soo galay anigu waan soo cararay bajaaj aniga walaashay oo xaamila aan bajaaj soo raacnay waxaan u imaaday meedka sariirtaas u sarnaa waxaan geeyay qolkan inta iridaanay taale shumaca banaanka yaalo ayaa guriga ku jiray shumaca wuu jeexjeexnaa gabadha waa loo qabeeyay go'ana ku dadnaa oo cadaanka ah gabadha gabku ahaa waxa joogay dariska dhan dariska xoogaa badan oo dariska iyo aabaheedba macni guriga aan markaan soo galayay guriga markaan soo galayay waxa ii sheegtay gabadha inaysan naf ku jirin oo gabadha indhihii iyo afkii baaba kala tagay jiray naf gabadhan kuma jirto anu ilaa markaan rajan qabay oo waxaan la gabadha dhakhtar geeya ama naqaska gabadha ku dhagan yahay macni waan qaadan adba ma qaadan lahayn qof caafimaad qaba guri ooga tagtay
waa dhimatay kadis ma qaadan kartid gabadha ma aragtaade garaafooyina ku yaala bay ku tiri marka maamada ku sheegaysa maya iimaysa sheegin intaa ima dhaafsan anigu maamada waxay ii sheegtay gabadha inay meed tahay intaan ka soo galay waan imaanay anaga bajaajaan soo raacnay intaan imaanay saan u socday gurigan galay aniga aawayadii qolkaasi ku jirtay qolkeeda ugu galay wajigan kaliyan ka feeday wajigan markaan ka feeday waxaan arkay afkii iyo indhihii oo kala tagay hadduu qof la joogo sankii indhahu u qaban lahaa oo wala dareemi lahaa dee qof weyn hadduu markaa joogo wuu dareemi lahaa qof naf ka socoto moogta waan qaraacma ani marka aqoonta aabaha u leedahay waxa lagu tuhmayay ee dilka gabadha ma yahay nimay ka suurtoodo runtii haddii aan ogahay in aabahaas uu ilmahaas ay ka suurtoodo inuu macnaheed kow ka siinayo anigu ilmo yaryar ogama aana tageen runtii ma oga tageen ilmo yaryar anigaaba qaadan waayaba kuwii kale waxaa reerkii oo dhan waaba aniga dhan qalqalaa igu dhacay wax aan filanayay arrintaa ma ahayn laas aabaha aabbo wuxuu ahaa reero neerfa ah iska xanaaq badan runtii maanta allah raxraxmin way iga hooseysaa darbiga guriga waxaa ku qoran hadallo ay gabadha ku tiri aabbo iyo cafi waxyaabo damqinaya dareenka qofka ku qornaa anaa ku dhahay anaa waxaan idhi buugiyo qalin baan u keenay waxay tiri hooyo inaan wax qoraan rabaa ilaa qofku markuu dhimanayo waxunbaa ka suurtooba iyaduna kolley teedii dee marka si caadi u dhimatay ayadoo horta kow buugiyo qalin ani weydiisay waxay tiri hooyo waxaan rabaa buugiyo qalinkeygii buugiyo qalinkii baan siiyey buug iyo qalinkii aabbo i cafi bay ku celcelinaysay qalad baan galay aabbo i cafi qalad baan galay aabbo i cafi qalad baan galay aabbo i cafi hooyo i cafi aabbo i cafi bay ku celcelinaysay marka hooyadeed dhimatayna cafisay weydiisanaysay aabaheedna cafis bay weydiisanaysay gabadho waxayna sheegaysay inay gabadho qalad gashay ayadaa sheeganaysay kula hadashay si go'aan kula hadashay wax ku sheegtay wax oo see ah yani qaladka ay gasho dheh saliga gabadha gabar yar ay ahayd anu maxaan ka wareysanaa aabaha ma garaaci jiray marka qaar gabadha ha gabadha 18 jir ee 2007 ee dhalatay markuu garaacayo muxuu ku tumi jiray yaa aabaha markuu gabadha garaacayo xanaananayo maya mar kasta ma garaaci jirin mar kasta gabadha adee anigu hooyaan ahay moogtahay hooyo ilmo u joogaan baan ahay oo buuxdo anigu gabar ma dhalin laase wiilal waa waxaan dhalay ha ahaatee ilaahay waxaan ka baryayay oon dhahayay ilaahay baa isiiyo iyadana waxaan ku dhahay hooyo ilaahaygii alla subxaana watacaala weeye alxamdulilah anig gabar isiinin baa adigana hooyadaa kaa jeclaadoo qaatay anaana ilaahay hibe ii kaa siiyey hooyo isdeji hadda moobeelkeeda intuu ka halaabaan xataa bishan ayada ah aan shaashad u soo saaray laamigan aan ka soo saaray aan u keenay marunba inuu kal ku dila marka gabadha ku garaa kal maba qabo kal iyo mooyaha la sheegaya anaanay tusaay ma keeni karaa kashi iyo mooyaha aniga aan isticmaalo ee guriga ii yaalo maba qabo noocaas kal iyo mooyaha waa kana mooyee kasha aan qaba aniga waa kana idinkaa ii jeeday inaad duubteen in kale maan qanjikadan hadda ka soo qaaday anu waaba qalqalayba kaliya waxaan sameeyey biyihii iyo gabadhii oo isdhex yaallay iridda markaan ka soo galay baan guriga dhan wada biyu ahaa gabadha qaabka waxay dhaheen waa xanshur bixinaynaa qofku markuu dhinto oo nafta ka dhacdo waa loo qabeeyaa sida caadada ah dad garanayana markaa iyada meesha joogin anigu mididka xataa waan dhaqaa oo hooyadii gacantaydan kusoo dhaqay oo waxaan iri marka sidan macquul miyaa gabar oo go' ku dadan yahay oo see biyo korka looga shubayaa meydka maxaa ka taqaanaanaan dhahay salligaa dariska weydiistay waxaan dhahay gabadheyda salligaasaa ii yaallay waa nijaas waxaan dhahay salli daayir ayaa ahaayo oo igu sadaqaysanaayo salliga daayirka dariska kasoo qaatay waxaan saaray sariir kale oo hadda guriga ku jirto oo nadiifa ayada sariirtaasay saarneed markaa imaanayay dariskana kole way joogeen guriga ayagaa iiga soo horreeyey markaasa intaan ka qaaday baan saaray go-a markasta xijaabka go' baa iiga hooseeyo go-aan watay baan aan u goglay markaasaan gabadha ila qabta aan dhahay geeskaa shishaan intaan ka soo qaaday shumaci oo jeexjeexnaa oo biyuhu hoos galeen oo gurigu biyo ka buuxo baan shumaci intaan soo laabay baan sararta gees u dhigay gabadhii ila qabtaan dhahay xaggaan saaray
gurigiyaa markaas aan biyihii ka bixiyey gabdhihiiba ayaga la bixiyey oo uu ka waata xawr gabadha korkeeda dhaawac ka muuqda markii loo fiiro waxaa jira aabbaha waa canaanan jiray markuu canaananayo muxuu ku canaanan jirayna ul noocay adeegsan jiray waa raadiyey hadda markaa imaaday waxaan inta badan la saari jiray gurigan korkiisa waxaa noo yaalay shaambuug oo ilmaha dhammaantoodba lagu canaanan jiray shaambuug haa macnihii yaa shaambuugga haddii la raadiyo kolley ma ogi inuu meeluu aaday anaa yaabanba saakan wiilka waxaa ir hooyo kor jaraanjartayna intiisaan hooyo kore waxaan dhahay raadiyaan dhahay mana saarno yiri marka shaambuugaa jiray wax oo ka weyn oo saa dadku waxay leeyihiin kala lagu dilay gabadha arko dhaqameedkeeda korkeeda garaafo maya ani ma dhaqin ani gabadha meedkeeda intaan u tagay ma dhaqin ani gabadha meedkeeda wejigaanba ka faydaan ku dhahay waxaan ku arkay iyada calaamadaheeda CAD anoo jooga waana loo imaaday waana la waday CAD anoo joogaa la yiri gabadhan go'a ka qaad markaasaan waxaan arkay calaamad intooga taalo markaasaan sii fayda bas markaas maan arkay calaamad gabadha waa la garaacay garaacisa ka muuqatay kulay gabadha calaamadaha ku yaalaya calaamad gudguduudan bay ahaayeen oo markay dhiig fariisto calaamad cusub qof la tumeeyay ama qof la jeexday sidee kula muuqata wallahi taas waxba kama sheegi karo dadka de ku takhasusay baa sheegi karaa oo waan qaadan waayey dadka ku takhasusaa sheegi kara diirsho cali warbaahinta RTN magaalada muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays balaas xawaaro sare iyo internet tayadiisa la hubo ku shuba $17 iyo bar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanaynin muddo bil ah waxaa intaas ku dheer adeegga nashaad IPTV oo aad ka maqsuudi doonto uga shuba ii dahab koodh nambarka xidig 1 eber 1 4 gees